سلطان وحلينا هيك ما تلقوا على مسارنا وحكم من نقضي سلطان هذا سومالي لان يا سوماليات با وأنا نبضون أديات بنسل وين يا مصر قيمة بدن له وحنا هدانو نهاي بيش سلمدو اسكو راعني دبدي iyo gudaba سلطان حسن عبد الله أحمد ayaanu isku raacanay ilaahina waxaanu ka baryaynaa mid diinta u gargaara geela waxa loogu heesaa aan ugu heshiisay Solomadow maanta waxaanu leenahay waxaanu ku heesanaado idin keenay Suldaan Solomadow oo in badan ka qatanaa suldaamada haddaanu nahay Solomadow haddaanu nahay beesha Solomadow beelaha Solomadow iyo gaashaanbuurtooda waxaanu halkan nahay suldaanka Xasan Cabdilaahi Axmed Mire haddaanu nahay beesha Solomadow uqaasheeda iyo waxgaradkeeda iyo baableeshakeeda in badan baanu ka shiraynay suldaankan aanu madasha keennay waa Suldaan Xasan Cabdilaahi Axmed Mire taariikh cusub baa maanta kow noo noqotay maanta waxa taladayadii way urursan tahay tamartayadii way urursan tahay waxa laala wixii anaga ay dad kale aan kula dhaqmanayna way urursan tahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waxaana nagu ogaataan maanta inaanu adrees leenahayo suldaankayaga waa kaa dhabarkayga fadhiya waxaanu haddaanu nahay beesha uu ka soo jeedo dhammaan dadka halkan nagu soo sharfay aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa dadka shaqaynaya ee madashan iyaguna diyaariyeyna aad iyo aad bay iyaguna boqolkiiba boqol u mahadsan yihiin suldaankana waa u hambalyaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala xilka inuu u fududeeyo ilaahay ku asturo kii aakhirana ajar uu kasbaday oo ku kasbaday ku gala jannada ilaahay adduunyadana aan ceebi ka raacina karaamo iyo sharaf ku yeesha haddana ay suldaankii guud waxaanu aqbalnay qaadanay idinka qaadanay beesha Solomadow Suldaan Xasan Mataan Cabdilaahi Axmed Mire waa qaadanay Suldaan Xasan Suldaan Cabdilaahi waanu soo dhaweynaynaa walaha dhaqanka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ummadda inta af Soomaaliya ku hadasho dhan waanu ku soo dhaweynaynaa Suldaan Xasan waxaan u malaynayaa maanta si sheegi mayno waa suldaan ku suntan nin ummad ururiya oo aad garanaysaan Suldaan Xasan intii waxa weeye uu nabadgelyada iyo hogaaminta beeshaba uu ku jiray iyo gobolkaba inaad garanaysaan guulihii faraha badnaa iyo ururintii faraha badnayd iyo mas'uuliyaddii faraha badnayd iyo hawlihii faraha badnaa kaalmaha uu ka soo qaatay saxana waxaan ku oran lahaa weligaaba ku adkow diintaada ku adkow dalkaaga ku adkow dadkaagana ku adkow waad siibteen waad hesheen waa lagu soo dhaweynaynaa waana lagu bogaadaynaa ilaahay waxaan uga baryaynaa Suldaan Xasan inay kay bulshada wax ku noqoto u noqdo kay bulshada wax ku noqoto waxa weeye kay abaarta kaga baxdo ay kaga badbaado ee xaq ka taliya ka colaada ay kaga baxdo ka diinta kaga taliya ka wanaagga ka taliya weeye waxaan leeyahay suldaan ku soo dhawow madasha dhaqanka ee Soomaaliland kala salaadiinta iyo Soomaaliyeedba waxaad noqonaysaa suldaan awalba waad ku jirtay dhaqankeed magaca baa ku soo biiray maanta waana soo xusheen qofkii mudnaa booska inoo celin lahaa waa haysan waa soo xusheen annaguna waa qaadanay haddaad sa shirteen maanta oo aad Suldaan Xasan Cabdilaahi isu soo raacdeen sidii cuqaashiinu sheegtay annana jawaab cad waxaanu kaga bixinaynaa annaga oo ka wakiila oo aan shakhsiyaad ahayn reerihii aan u boqoranayn waxaanu aqbalnay inuu yahay suldaanka beelaha Solomadow Suldaan Xasan Cabdilaahi Axmed Mire anigoo ku hadlaya afka beesha magaadle dhammaan beesha gudo iyo dabadba waxaan kaaga sidaa salaan iyo duco iyo hambalyo iga guddoon marka suldaan waa ku ducaynaynaa ilaahay suldaankii jiraha kaa dhigo Suldaan Xasan Cabdilaahi Axmed inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala xilkaas weyn loo doortay inuu ku asturo
ayaynu u ducaynaynaa. laga sheekeeyey runtii suldaanku waa suldaan la wada yaqaan oo cid walba ilaa bari ilaa galbeed la wada garto nin walba ninkaa waan aqaanaa waa u qalmaa reerka qoyska uu ka soo farcamayna waa reer la yaqaan ee isaga qura kuma sugnee reerka oo dhan waa reer la yaqaan weeye oo taariikh leh nin ku filan beesha iyo dhaqanka iyo wixii loo ogmidayba waan idinla qaadanay baanu idin leenahay u ducaynayaa suldaanka ilaahay xilkaa ha kuu fududeeyo ilaahay ha kula qabto ilaahay ha kula garab galo anigu waxaan ka soo jeedaa degmada Boocame ee gobolka Sool waa xuduudda aynu ku faanay yoocada ee reer Soomaaliland yahay yoocada aanu gaarnaa degmadaas aanu ka soo jeedaa halkaas aan uga soo kacay calaamasaarka suldaanka deetana waa aqbalan tahay suldaanka arrintiisu hambal yaanu leenahay waanu la dooranay waan ku soo dhaweynaa bahda dhaqanka suldaan xasan haddaad maqasho nuuxnimada waxa la yidhaahdo nuux maxamed waxay fadhidaa solomadow markaa waxa weeye maanta halka waxaynu ku boqoray suldaan nuux maxamed aad iyo aadna waa lu soo dhawaynayaa keliya waxa aan soo dhawaynayaa dadka dibadaha ka yimi meelaha fogfog aad iyo aad baan u soo dhawaynayaa haddii la yidhaahdo reer Axmed Mire waa ayana waxaan qirayaa inay qoys lama huraan yihiin dadkuna waa wada yaqaan isku degaan baynu nahay in aan wixii igu yimaadana kula kaashado wixii kugu yimaadana aan kugu garab taago waxaan u ducaynayaa suldaan xasan mataan waa loo duceeyey waa la sheegay qiimuhu leeyahay salaadiintu waa nin isboqray iyo nin la boqray waxaa kaloo magaca xisbiga aan ku salaamayaa kula soo dhaweynayaa suldaan xasan cabdilaahi axmed muddo badan aan soo wada shaqaynay waxaan ilaahay hortii la hortegayaa inuu yahay kula sifoobay dabeecad wanaagsan inaannu ka soo qayb gallo maanta xafladda caleemasaarka suldaan xasan cabdilaahi axmed mire inuu suldaanka ka yeelo mid dadkiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaca ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay u fudaydiyo mas-uuliyadda iyo xilka culus ee ay maanta ardaagiisu u doorteen runtii waxaan ka markhaati kacayaa inuu xilkaa loo igmaday nin mutaysan yahay kana soo baxayo ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu ku garab galo waxaan ugu mahadnaqayaa ka soo qaybgalkoodaan ugu mahadnaqayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin ilaahayna ha idin barakeeyo waa idin soo dhowaynayaa waa idin salaamayaa waadna sharafteen sharaf baad leedihiin meelo fogfog iyo gobollo fogfog baad ka timaadeen qof kastoo maqaankii uu lahaa aan hadalkii ka helin waxaan idin leeyahay aad iyo aad baan idin raalli gelinayaa waana mahadsantihiin kulligiinba waan idiin hayn doonaa insha allah abaalkaadi gashateen waxaa la yidhi wax raaga abaal raaga rag iyo geel baalay ilaahay ha idin barakeeyo ilaahay ha idin asturo ilaahay nabad hayna siiyo ilaahay haynoo hagaajo caafimaadka